noloshu waa loolan halgan ama hogo qabiil ma lihin qaran ha sheegin dadku sidii waslad quruntay baysanka iyo indhaha naga qabsadaan xataa wadaadka wacdigiisu yahay in la isu naxariisto nooma ogolaado inaanu cagta saarno masaajidkiisa wirwiraya maxaa yeelay ma nihin dadka sharfan ee kitaabkiisa ku qoran waxaa jirta xaqiiqo isdiidsiiyaan waxaanu nahay caddaynta dhabta ah ee caqli xumadiinna taasi ma aha waxa muhiimka ah ee biyo kama dhibcaanku waa inaan caqliyadaasi sii talin doonin haddii ayna jirin sabab jiraalka iyaga ka dambaysaa ma jirto sabab aanu idiin dhaafno marka aan indhaha furo ee aan dhanka suuqa u luudo galab walba waxa aan faashkayga kula dardaarmaa quud fiican soo dhacso ama dhiig fiican soo qub ma jiro habeen iiga farxad badan kolka aan fiidkiiba moobil ka qaado ardayd jaamacadda ka timid ee aan degdeg ugu helo iib gaajada igu qabowday judha aan haaf bariisa iskaga diiriyo meesha iigu dhow ee aan khamri ama xabad ka heli karo ayaan isu sii daayaa balwaddu waa quudka keliya ee i dareensiiya inaan qof ahay daqiiqadda aan afka saaro ayaa iigu dambaysa kadeedka waayaha waxa indhahaygu sidii filim u daalacdaan nolosha ugu quruxda badan ee aan heli karo nolol aan ka warwar la ahay quud amni iyo hoy nolol aan cidina ku qaylinaynin tuuga qabta iyo garacan maxaa meesha wadhay taasi waa riyada sarkhaanada dibjirta ah maxayse kaaga dhigan tahay waa dhado cadceedda la duusha